Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhammaan daawadayaasha ku xidhan kanaalka Sac Software idil ahaantiin waxaan idinku salaamaynaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Salaan ka bacdi waxaanu halkan idiga soo jeedinaynaa casharkii 7 ee kooraskii inooga socday kanaalka Sac Software ee ahaa kooraskii HTML iyo CSS insha allahu tacaala. casharkeenan 7 waxaynu ku qaadan doonaa insha allahu tacaala sida loo sameeyo options maxay tahay markaasi qofku uu ka dooran karo shayga uu uga baahan yahay insha allahu tacaala. sidii caadadaynoo ahayd waxaynu soo furanaynaa application-keeni Notepad++ ayaynu soo furanaynaa. markaasna waxaynu halkan koodhka ayaynu halkan ku qoraynaa insha allahu tacaala. space ayaan leenahay si aynu meel bannaan ugu furano. kadib taag furan ayaan leeyahay, waxaan leeyahay select ayaan leeyahay, kadibna taagi ayaan soo xidhayaa, hoos ayaan uga yara degayaa. taagi ayaan halkan leeyahay ii soo xidh taaga, macnaha calaamadaas horena waa usoo aragnay, waxa weeye calaamada parameterka hore u jiifa waxa weeye inaad soo xidhato wixii. kadib labada taag dhexdooda ayaynu ku bilaabanaynaa koodhkeena. waxaynu leenahay option baynu leenahay, kadib waxaynu leenahay value qiimaha inoo hayaana uu yahay equal uu la mid yahay double rotation markaasi 252 uu la mid yahay. kadib waxaan leenahay maxay tahay parameter, kadib waxaan leenahay plus 252 furaya. tusaale ahaan waxaanu ka dhigaynaa furayaasha wadanka lagu soo galo ama wadamada iyo wadanka aad dooranayso oo kale. kadib halka waxaan leeyahay ii soo xidh option-kii ayaan leeyahay, kadib parameterkii ku soo xidh. markay caynkaa tahay anigu waa iska dedejinayaa oo waxa weeye waa iska koobiyeysanaya kan midhkan aan samaystay. markaasi laakiin adigu waxa weeye inaad samayso oo ood koobi iyo basti isticmaalin si aad practical u samayso. halkan waxaan leenahay 6, halkan waxaynu leenahay 7 ama waxaynu leenahay 3, kadib waxaan halkana leenahay 6 ayaan halkana ka bedelayaa, halkana waxaan leeyahay 3. markaasi waxaan leeyahay halkaa hore ayaan waxaan leeyahay choose your country ayaan leenahay. markaasi dabeedna waxaan leenahay save ama control s, kadib waxaan leeyahay run ayaan leeyahay si aan u arko wixii qaabka uu yahay insha allahu tacaala iyo qaabka igu soo baxayo. waxaan oo dhan waxaynu hore u samaynay, waad aragtaa nidaamka aan u samaynay toos ayuu kugu muuqdaa. choose your country, kadib maxay tahay wadankaaga furihiisa ayaa dooranaysaa hadduu yahay maxay tahay markaasi noocu doonaba ha ahaado, sida ayaad ku samaynaysaa. kaasina waa options. waxaanu doonaynu ka dhigaynaa halkan haddaynu doonno waxaanu ka dhigaynaa Soomaaliya. choose your country haddaan idhaahdo NID Djibouti ayaan leenahay. markaasi halkana waxaan leenahay Kenya ayaan leeyahay. markaasi dabeedna save ayaan leeyahay. iminka haddaan ku bedbedelay halkan waxaa kasoo bixi doona wadamadii waad ujeedaa iminka waxa weeye Soomaaliya, Djibouti, Kenya
markaasi iyaduna waa waxaynu hadhow isticmaali doono markaynu foomam iyo dhisayno, tusaale ahaan gaar ahaana markaynu database ka dhisayno waxaynu aada ugu baahannahay insha allahu tacaala. cashirkeenna intaas ayaynu kusoo koobaynaa insha allahu tacaala. waxaan rajeynaya inaad practical badan sameysayso insha allah. waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala inaad practical fara badan sameyso si aad u fahanto koraskan html insha allahu tacaala. kolley waxa iska dhowdhow casharadii aynu ku geli doono inagoo css markaasi ku qurxinayna wixii ku midabaynayna. iminka waxaan waa wax iswada dhex yaala, laakiin css-ku waa u nidaaminayaa oo qurux badnaysiinayaa wixii. marka insha allahu tacaala idil ahaantiinba waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.